yuhuudda ku nool Ethiopia ee loo yaqaano Beta Israa'iil oo macnaheedu yahay guriga Israa'iil, iyo qayb kale oo loo yaqaano Falaasha, kuwaas oo ah kuwii ridoobay ee ka noqday diinta Yuhuudiyadda qaatayna diinta Kiristaantiga. Ayaynu kaga hadlaynaa xaqaa'iqo ku saabsan sidii ay ku yimaadeen dhulka. Macluumaadyo kale ayaa inoo raacsan oo ku saabsan guud ahaan Yuhuudi timid Geeska Afrika oo ay ka mid tahay dhulka Soomaalidu degto. Nabadi korkiina ha ahaato walaaladay daawanaya. Barkulankeenin waa samawade. Haddii aad wax macluumaada ka faa'iiday suulka taabo, waad mahadsan tahay. Barnaamijkeena ayaynu toos u gudagalaynaa. Marka koowaad waa inaynu isla fahanaa boqortooyadii ka talin jirtay Ethiopia iyo waxa ay aaminsanayd waqtigaas. Waxaa Ethiopia ka talin jiray qarniyo aad u badan boqortooyo la odhan jiray Solomon Dynasty, kuwaasoo asaasmay sanadkii 900aad ee Christian era. Waxaa kale oo loo yaqaanay House of David ama aqalkii Daawud, yacni xukunkii Daawud. Okay, haddaynu intaas la garanay aynu u nimaadno waxa ay aaminsanaayeen dadkaasi. Waxaa biyo kama dhibcaan ah oo ay aaminsanaayeen ilaa iyo hadda ay aaminsan yihiin inay yihiin dhashii David iyo Solomon, yacni Nabiyullaahi Daawud iyo Nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam, oo loo keenay inay maamulaan Geeska Afrika. Waxay isku magacaabi jireen dhowr magac oo kala ah King of Aksumawit, Nagasta, Elect of God, dadkii alla doortay, King of Zion, iyo King of Abyssinia. Okay, Minilik kii koobaad iyo kii labaad. Kuleytu magacan Soomaalidu way maqashay. Magacan macnihiisuna waxa weeyaan wiilkii xikmadda. Okay, Minilikii labaad isagoo waqti saa usii fog maaha taariikhdiisu. Waqti adi waxaan malaynayaa inuu dhintay 1913, waana ninkii la dagaalami jiray Talyaaniga. Laakiin waxaynu ka wada hadlaynaa Minilikii koobaad. Kan marka wuxuu ahaa boqorkii koobaad ee dhisa dhulka Ethiopia, kana dhisa boqortooyo qarnigii 10aad ee Ciise hortii. Sida taariikhda Ethiopia ku xusan ama sida ay aaminsan yihiin, waxay sheegaan Minilikii koobaad inuu ahaa ubadkii uu dhalay Nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam. Intaa kumayna joojin ee waxay weliba raaciyaan in ay hooyadiin ahayd boqoradii ka talin jirtay Saba, boqortooyadii waqtigaa ka dhisnayd Yemen. Soomaalidu waxay dhahdaa fulixantii ma mooge. Raadraac iyo research lagu sameeyey oo Yuhuudda laftirkoodu ay ku samaysay taariikhdaas, waxa ay sheegeen in Minilik hooyadii Israa'iil joogi jirtay qaasatan Jerusalem, halkaasay uur sharci darro ugu qaaday nin magaaladaasi ku noolaa. Kadib ilaa intuu 20 sano gaadhayay ayuu hooyadii kula noolaa magaaladaas Jerusalem, waxayna hooyadii ugu sheekayn jirtay inuu aabihi ahaa King Solomon. Kadib markuu daaha 20aad galay, ninka Minilik een aabbaha lahayn iyo hooyadii ugu sheekaysay inuu aabihi yahay King Solomon, ayaa waxay Yuhuudi bilowday inay ku darto hub iyo ciidan isagoo Ethiopia uga asaaso boqortooyadaas oo isaga loo caleemo saaray. Bartaas ayay ka bilaabantay Yuhuudii ugu horeysay ee Geeska Afrika cag soo gelisa. Waqti dheer kadib markii xukuumadihii isbedeleen ee ay kala dhaxleen reerkii isku sheegay inay yihiin dhashii Nabiyullaahi Suleymaan calayhi salaam. Intaa kadib waxaa bilaabmay waa cusub iyo taariikh cusub. Dalka Masar ayaa waqtigaas boqortooyin ka talin jiray oo awoodo badnaa ay awoodii ku loolameen. Waqtigaa Yuhuuddu waxay ku hoos nooleed xukuumaddii Masar haysatay oo aad u badneed dadkii ka soo hadhay waqtigii Nabiyullaahi Muuse. Hirdan, loolan iyo dagaalo ka bacdi waxaa laga adkaaday oo laga guuleystay boqortooyadii Masar ka talin jirtay. Yuhuudii waqtigaa Masar ku nooleedna waxaa laga dhigay adoon iyo in firdhada. Marka qaybtii firdhatay waxay soo galeen Suudaan, Ethiopia, Yemen, Somalia iyo Sacuudi Carabiya. Walow ay ugu badnaayeen Yuhuudii soo gashay Ethiopia, Yemen iyo Sacuudi Carabiya. Millennium kadib iyo qarniyo badan oo ay boqortooyadii isku cimaamaday inay yihiin Solomon Dynasty, ay weeqantay una bateen dad aad ugu dhegan diinta Kiristaantiga ee Orthodox, ayaa qarnigii 19aad ilaa qarnigii 20aad ee lasoo dhaafay waxaa Yuhuudda Ethiopia lagu qasbay inay qaataan diinta Kiristaantiga. Qaybtii diinta Kiristaantiga qaadatay waxaa loo bixiyay Falaasha. Qaybtii kale diidayna waxay magacoodu ay sii haysteen oo ahaa Beta Yuhuud ama guriga Yuhuudda. Beta Yuhuud, qaybtii diintii Yuhuudiyada sii haysatay oo ku dheganayd, waxay aaminsanaayeen haddii ay taabtaan qof aan Yuhuud ahayn in ay jasadkoodu nijaas noqday, ayna xaaraan tahay qof aan Yuhuud ahayn in jasadkiisa la taabto. Ayaga oo isa sii takooray ayaa waxaa kusii dhacay takoor kale, waxaana meeshay ka baxday in lala macaamilo
ama wax laga iibsado ama waxay dadka iibsadaan. Badigooduna waxay naceen diinta yuhuudiyada maadaama ay kala kulmeen takoor aad u ba'an. 1948 ku dhawaaqidii dowladda ay yuhuuddu leedahay waxaa daafaha caalamka iskaga yimid wixii isir ku lahaa qowmiyadaas. Hirarkii ugu badnaa ee yuhuudda Ethiopia ku laabato dhulka ay xaaraanta ku haysato xukuumadda Zion waxay ahayd 1934 ilaa 1960 walow ilaa hadda ay ku qulqulaan. Israa'iilna